Marwadan oo gurigeeda ka soo baxday ayaa waardiyaha salaamayo, waardiyaha ayay salaanta ka qaadaysaa. Gabadhan ayaa gaariga ka furayso, Marwadan waxay galaysaa gaariga. Markii ay damacdo inay baxdo ayaa waxa uu imaanaya waardiyaha wuxuuna u garaacayaa maraayadda. Marwada maraayadda ayay dejinaysaa. Waxay ku leedahay maxaa kugu dhacay ayay ku leedahay. Wuxuu leeyahay Marwo maanta aad bixin ayuu ku leeyahay. Maxaa dhacay ayay ku leedahay maanta aniga inaan baxo waa daruuri sababtoo waxaan leeyahay ayay leedahay shil degdeg ayaan leeyahay. Midda kale fil ayaa rabaa in aan geeyo xafiiska ayay leedahay. Maxaa jira ayay ku leedahay. Waardiyaha ayaa u sheegay xalay in uu riyooday. Waa maxay riyada ayay leedahay. Wuxuu leeyahay xal waxaan ku riyooday anigoo gaari saaran kadibna gaariga shil aan ku galay. Sidaas darteed wuxuu leeyahay Marwo adiga bixin ayuu leeyahay maanta waa in iska joogtaa. Gabadhan ayaa soo boodaysa waxayna ku leedahay Marwo waxaan waa riyo sidaa banaan murmooday shaqadaada aad ayay ku leedahay. Marwadan ayaa dhehaysa waan ku qasbanahay in aan baxo maanta sababtoo ah shirka ayaan ka baaqanay haddii aan maanta aan joogo waa inaan baxay leedahay. Waardiyahan ayaa dhahayo Marwo haddii adiga maanta wax ku soo gaaraan intaan qof oo shirkadaada ka shaqeeyo xagee bay wax ka helayaan. Marwo waan ku baryaa sidaas darteed dadkaas dartooda u joog ayuu ku leeyahay. Islaantan isbaanku isgaranaysaa sidaas haddii ay tahay leedahay waayahay feelka waxaan u dhiibiyaa darwalkeeda. Gabadhan ay la hadlaysa feelka waa inaad ku soo wareejisaa ay leedahay. Darwalka asiga ayaa geenaya xafiiska anigana maanta waan joogaa wixii kaloo soo waxay leedahay online ahaan ayaan ku dhameynayaa. Gabadhan waxay leedahay confirm albaabka ayayna ka furaysaa. Marwadu waxay ka soo degaysaa gaariga. Gabadhan waxay feelka u dhiibaysaa darwalkii. Darwalkii ayaa meesha ka soo tagaya cabaar markuu soo socdo darwalka wuxuu damcaya gaariga in uu bareeg qabto laakiin bareega ayuu gaariga ka waaniyaa. Wuxuu leeyahay maxaa ku dhacay maanta bareega. Darwalkiina wuxuu sidaas ku galayaa shil. Islaantan waxay wicaysaa xafiiska waxayna ku leedahay feel ayaa inii soo dhiibay feelka ma nii soo gaarin. Waxaa loo sheegay wax feel ah in uu soo gaarin. Wayaawisa waxay leedahay feelka xagoob oo ka baxay. Waxaa isla markaa albaabka ka soo galaya darwalkii oo dhaawac fara badan ka muuqdo. Waxay ku leedahay maxaa kugu dhacay. Wuxuu u sheegayaa markuu meesha uu ka tagay gaariga in uu bareeg ka waayay sidaas darteedna gaariga uu xakamay waayay. Wuxuu ku leeyahay gaariga Marwo shil ayuu galay. Islaantan waxay soo xasuusanaysaa hadalkii oo waardiyaha u sheegay. Islaantan waxay ogaanaysaa hadalka waardiyaha u sheegay in uu sax yahay. Ninkan ayay ku leedahay wax miyaa ku soo gaaray asigu wuxuu ku leeyahay waxba ma soo gaarin waan ka badbaaday ayuu leeyahay. Waxay leedahay halkan waa inaad ugu sugtaa. Waxaan wataa codsi labada maalmood janalkan aad ayaad u qurxiseen laakiin hadda waxaan ka dareemayaa xoogo caajis ayaan dareemayaa. Waxaan rabaa si aad noo garab taagnayd si qurux badan aad noo garab istaagtaan. Janalkan waa inaad ku ridaan maalmo gudahooda 10,000 ka badan. Anigan waxaan isku daynaa mar walba in aan soo gelino muuqaalo idinka aad xiiseynaysaan. Muuqaalkan la gareeyo sheegareeyo asxaabtan la wadaaga. Intaas waxay inoo tahay dhiirigelin. Waxaan rabaa muuqaalkan in aan ka dareemo meel dheer waa inaad gaarsiisaan. Janalka waa inaad noo qurxisaan.